Xoogsatada ka shaqeeya dhismayaasha magaalada Garowe ayaa cabasho ka muujiyay shaqo la'aan soo wajahday waxayna sheegeen in shaqooyinkii ay kala wareegeen dad ajaanib ah. Shaqaalahan ayaa waagu markuu bariyo waxay inta badan ay ku kulmaan goob ay ola baxeen riigada oo bartamaha magaalada Garowe ku taala iyadoo lagu arkayo halkaasi oo camal la'aan ay ku haysato xilliyada qaar. Waxa ay sheegeen in dad ajaanib ah oo u dhashay dalalka Pakistan, Hindiya iyo wadamo kale in suuqii ay ka saareen oo shaqooyinkii ay kala wareegeen. dadka waxaan nahay oo garabka badilka oo shaqaalaha oo masaakiinta oo barakaca halkan yimidanahay ma garat walaal haddana waan ku shaqalaanaa meesha dadka waxa la keenay dad ajnabi ah ayaa la keenay oo shaqooyinkii oo dhan loo dhiibay anagana meesha waxaan ku nahay camal la'aan baan ku nahay waxaan rabnaa dadkan ka cabaneen waa dadka ajnabiga waa Pakistaanka iyo qoladan hadda Hindiga la keenay anaga hadeer waxaan ka cabanaynaa dadka oo cadaan kor ka imaaday anagoo wadani ah ka imaaday sidii hadeer oo aan ka cabanaynaa Bangladeshkan iyo kuwan Pakistaanka iyo dadkan kale la sheegayo haddana shaqaale baa iskugu jira farsamo yaqaan baan sida fundi oo kale tubisto kale korontisto kale bitoor oo kale all wada naqaana marka cabashadiyadu waxay tahay waxaan dhihi lahaa horta walaalihii iga horeeyay ayaa yiray marka aad cabasho waxaan aga muujinaynaa dadka kan ajnabiga ah oo ka yimid wadamada kale ayaan aad aga cabanaynaa. Xoogsatadan waxay isugu jiraan kuwa dhisa guryaha, kuwa galiya tuubooyinka iyo kuwa kale. Waxaana madaxda Puntland ay ugu baaqeen in cabashadooda shaqo la'aanta ah iyo ajaanibta ay ka cabanayaan ay wax ka qabtaan. Camal la'aan waan ku nahay waqti badan baan camal la'aan ahayn. Waxaan doonaynaa dawladda Puntland waxaan ku codsanaynaa inay shaqo noo yeesho ma garat. Ay maanta dul xabsadaan. Waxaan doonaynaa dawladda Puntland anaga dadka ay keeneen oo macnaha maanta dalka u dhalanin oo shaqadii siiyeen anagoo muwaadin ah xaq u lahayn Soomaali ama Puntland tan ku nool lahayn waxaan ka doonaynaa in aad aynaga ay hadalladayada ay u tixgeliso qeybtii. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Injineerada dhismayaasha Garowe ayaa sheegaya qaarkood in dadka Soomaalida ah badankoodu aysan sidii la rabay uga soo bixin shaqada markaasna ay door bideen dad ajaanib ah. ahna injineerada ka shaqeeya caasimada Puntland ee Garowe sanadadan dambe hadda waxa laga camanayo oo ah shaqaalaha ajaanibta oo la keenay muhiimadda ku jira waxay tahay in shaqaalihii dalka u dhashay oo ay darbiyada ka fadhiyaan ay shaqeysanayn markii loo yeerano ay wax aan shaqada ku jirin iyo wax macquul ah iska hadleen sidaa darteed dhanka shaqada oo laga shaqo fiican yahay oo dadka ajnabiga marka dibadda laga keeno oo qof akhlaaqiyan shaqo ahaan quality iyo dhinac walba markii laga fiiriyo uu shaqadii kaga fiican yahay qof kale oo amirtii shaqada wixii loo diro uu qabanayo maadaama qofkan kale marka shaqo u dilid ilaa 20 sano hadda la soo dhaafay waxa noo shaqeynay dadka dalka u dhashay maadaama hadda caasimada aad ay u soo fadhiiso shaqooyinka ugu badan waxa qabta dadka dalka u dhashay laakiin hadda shaqooyinka ugu badan oo loo dirso dadka ajnabiga waxa kamid ah shaqooyinka hadda cusub. Magaalada Garowe ee xarunta Puntland ayaa ah magaalo sii koraysa waxaana ku soo siyaadaya dhismayaasha waaweyn sida dabaqyada, noocyada guryaha kala duwan, shirkadaha iyo goobo kale. Waxaana dhismayaashaas ka shaqeeya oo nolol maalmeedkooda ka dhacsada dhalinyaro Soomaaliyeed balse waayadii dambe waxa magaalada ku soo batay ajaanib dhisaysa guryaha kuwaas oo ay keensadeen shirkadaha. Cawl Cali, Goobjoog, Garowe.